secret. Forex Millionaires waa mar kale iyo barnaamijkeenii software-ka ahaa ee Golden Road Software. sida aynu hore u sheegnay, Golden Road Software waxa uu qofka ka caawinaya oo in badan ka saacidaya inuu ku siiyo awood la mid ah istiraatiijiyadaada aad ku shaqaysanaysid, dabadeedna uu kugu dhiirigeliyo in aad iswaafaqsan tihiin in badan iyo in badan weliba, saa darteedna aadan dareerka khasaarin oo aadan faa'iidada iska luminin. saaxiibayaal, bal haddaynu isla eegno qaabkay isu waafaqayaan istiraatiijiyadaas iyo software-kan aynu isla eegno. inta badan saaxiibayaal waxaan ku talinayaa inaad isticmaashaan waxa ay ugu yar tahay time frame-ka ay ugu yar tahay 1 hour iyo wixii ka sarreeya 4 hour 1 day iyo wixii intaa saddexdaas taabacsan 1 month iyo 1 week Soomaalida inta badan ma trade garayso, laakiin saddexdan time frame ayaan ugu talinayaa. wixii ka hooseeya ma damaanad qaadi karo software-kani. saaxiibayaal, haddaynu isla eegno lacagtan tusaale ahaan waa AUD/JPY. bal intriga uu halkan naga siiyey fiiriya, waxa uu ina siiyey san horu sheegay dhowr qodob baa lagu qaataa trade-kan software-ka. waxaa ka mid ah calaamadan yar ee fallaadha ah, marka ay buluugga tahay waxa ay sheegaysaa lacagtani buy. bal ka warrama haddii halkaa waxa uu naga siiyey intri, laakiin mar walba oo ay halkan ka soo baxdo meelahan ama meel halkana ama meel dhaafsiisan meesha loogu talagalay ma shaqeynayso. lacagtan ama fallaadhan waxaa lagu qaadanaya mar walba oo ay kasoo baxdo zoonaha buluugga ah oo marka ay bay aadayso, kanaladana ay taabteen gudaha zoonaha buluugga ah. so ma saxsana warkaasi oo waadix maaha. mar walba oo fallaadhani ay soo baxdo kana soo baxdo zoonaha buluugga ah, fallaadhahan kanalistiguna ay soo gaadhaan zoonaha buluugga ah, markaas wey marka uu intri ku siinayo trade. laakiin bal ka waran hadday halkan ka soo baxday oo halkan gashay soo kan SL-kaaga soo dhacay dib soo laabtay. SL-kaaga haddaba waxa aad dhiganaysaa saaxiibayaal fallaadhan yar hoosteeda meelahan baad dhiganaysaa. bal aynu eegno haddaba inuu ilaa halkaa kusoo laabto. kadib qofkii halkaa ka geli lahaa intriga halkaa ka qaadan lahaa ee la socon lahaa ilaa iyo suuq halkaa uu ka gaari lahaa salka kale, waxa uu faa'iidi lahaa 98 bib oo lacag 100 bib wax yar u saaran. haddii aanu sii soconno backlistigana ku soconno tusaale kale oo sel ah. tusaalaha selkaa waxa uu muujinayaa in lacagtu marka la joogo lacagtaada bayarka aad joogtid, marka uu ku siiyo fallaadhan waxa kale oo la socota qawaacidda oo qofka iibsadaan u sheegi doonaa inay qawaacid yaryar oo kale. waxaa ka mid ah fallaadhan marka uu ku siiyo oo waa marka uu sel soo aadayo trade-kani, waxaa ka mid ah inuu zoonahan casaanka ah kasoo baxo fallaadhani, kandaladuna ay taabteen zoonahan casaanka ah. so waadix maaha. ka warran halkan waa kasoo baxday fallaadhii, zoonihiina way taabatay oo ay ku dhex jirtaa oo halkaa waata kusoo taabatay, laakiin maxaa kaa maqan? candlestigii ma ay taaban. qofkii halkaa ka geli lahaa ka warran haddaba soo tan asalka kaga soo dheera aya. marka waxaad samaynaysaa markaad qawaaciddaada dhamaystirtid ayaad asalkaaga waxaad dhiganaysaa halkaa koonaha fallaadha dabadeeda. hadba qofka lacagta ugu jirta intay leeg tahay 50 bib 60 bib waxaa ha isku badanin. halka marka aad dhigatid waxaad ka soo gelaysaa suuqa tusaalehaan halkan ka hor intaad la socon lahayd ilaa halkaas ayaad la socon lahayd waa 95 bib oo kale. markan ka warraba, markana asalkii kaga soo dhacday, markan lacagtu waxay ku siisay confirmation buy ah. waxa ay ku sheegtay inay zoonihii buluugga ahaa soo gaadhay ama ay soo gaadheen kandaladii soo baxday fallaadhii buluugga ahayd, laakiin waxbaa maqan. waxaas oo aan u sheegi doono asxaabta iibsata oo hal qodob oo keliya ah, laakiin haddana inta badan confirmation-ka waad haysataa. sidan waad ku geli kartaa suuqa. kadib SL-kaaga waxaad dhigan kartaa
halkan baad dhigan kartaa kooraha dabadeeda falaadha yar gadaasheeda ayaa dhigan kartaa bacda waad gelaysaa marka waxaa khasaba sida caadiga ah suuqu inuu mar corruption galo laakiin asalkaagi marna kuma dhicin asalkaagi marna kuma dhicin corruption buu kula galay ilaa iyo halkaan ay hadda la socotid waxaad faa'iidi lahayd waxaad gashay waxaad faa'iidi lahayd 100 bib iyo dheeraad weliba laakiin haddana corruption ha kula galo ha ku siiyo corruption fara badan ha ku siiyo asalkaagi marna ma ay soo gaadhin haddana faa'iidadaadii wada heshay profitka haddaba sidee baad u xiranaysaa profitka waxaad u xiranaysaa mar walba oo ay samaysato qawaacidda ta kale tusaale ahaan qawaacid sal ah ayaad ku jirtay mar walba oo ay samaysato qawaacid bay ah waad ka baxaysaa si min weli ayaad saxaysaa trade saaxiibayaal si la mid ah saaxiibayaal mar kale haddaynu salka eegno AUD JPY oo joogno waxaynu arkaynaa in halkaa uu inaga siiyey qawaaciddii oo dhammaystiran markan xataa kii aan lahaa waxaan u sheegayaa saaxiibada iibsada oo keliya halkan waa ay ku dhamaystiran yihiin waana marka uu suuqu 100% yahay suuqa wax 100% ma jiraan laakiin marka uu falaadhan calaamadan kale ee dhiman ee aan u sheegi doono asxaabta iibsata uu soo saaro waa marka uu yahay suuqu 100% halkaas haddii aad kasoo geli lahay saaxiibayaal oo qofka halkaa kasoo qabsan lahaa trade-ka ilaa iyo halkaa la socon lahaa 135 bib ayuu ka faa'iidi lahaa oo lacag 140 bib marka hore mar kale haddana halkan bay ayuu laga siiyey suuqu bay ayuu aaday halkaasaad ka geli lahayd waxaa la socon lahayd ilaa iyo halkaa kale qawaacidda kale ka dhamaystiri lahayd waa 140 bib weliba iyo dheeraad marka hore asalkaaga halkan buu yaallaa hal mar kuma soo laaban sidaa darteed saaxiibayaal software-ka waa software aad powerful ah oo aad la adeegsan kartid istaraatiijiyadaada bal haddii aynu eegno iminka sida istaraatiijiyadaada loo adeegsan sidaad isu waafaqaysaan waxa aynu tegaynaa lacag kale AUD CAD oo iigu degsan istaraatiijiyadeeda caadiga backtestingku in ku filan waan ku samaynay videogan iyo kii ka horreeyeyba marka saaxiibayaal balkana aynu fiirino lacagtan imika waa AUD CAD qawaaciddii waxa ay buuxisay qayb ka mid ah inay sel soo aado laakiin intri weli aynama u siinin wax intri ah weli inama u siinin marka intri maadaama aanu ina siinin waxaan sameynaynaa waxaynu tegaynaa oo soo furanaynaa trade fieldeeni waxaynu eegaynaa bal in istaraatiijiyadeena ay wax ka waafaqsan tahay saaxiibayaal halkan waxaad u jeedaan in lacagta AUD CAD oo aan hore ugu soo diray groupka ama telegramkeena aynu ku leenahay in aynu sheegnay marka ay halkaas meel la siman oo ah falaadha halkaa inoo taalla rooga ama reyga halkaa inoo yaalla aynu kasoo geli doono ilaa iyo halkaana la socon doono ilaa hadda intrayna may siinin waxa suuragala inay halkaa falaag yar ka gasho laakiin saaxiibayaal waxa aynu sugaynaa marka lacagtan ay halkaa falaag ka gasho waxa kaloo aynu sugaynaa in lacagtan ay iswaafaqaan mujeeda ay iswaafaqaan softwarekeena bal aynu tagno softwarekeena maxaa u dhiman waxaa u dhiman inuu siiyo qawaaciddii intriga ilaa hadda inama siinin xaggana waa la mid oo istaraatiijiyaduna ilaa hadda qawaaciddii intriga inamay siinin suuqa weliba ayba u socdaa laakiin waxaas 100% in halkaa laga soo celin doono suuqa structure-kaa u dhamaysan doono dib uu soo daadan doono waxaa suuragal fiiq yar la baxo bacdeen uu soo daato isha ku haya saaxiibayaal waa powerful software-kan si adag ayuu ku qawaaciddaada u waafaqayaa dabadeedna waxaad ka qabsan doontaa profit aad fiican haddii ilaah yiraahdo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waxaan doonayaa inaan ku daro intaa saaxiibada u baahan inay iibsadaan waxay nagala soo xiriiri karaan dhammaan nabarada ku qoran description-ka youtube-ka sidoo kale waxay nagala soo xiriiri karaan saaxiibadu telegramkeena oo iyo baraha bulshada dhammaantood facebookka waxaa noogu qoran Somali Forex Millionaires page-keena instagram-ka oo aan ku leenahay followers fara badanna waxaa noogu qoran Somali Forex 2 sidoo kale telegramka Somali Forex Millionaires ayaa noogu qoran saaxiibayaal iyo welcome